Chief Caaqil Cabdilaahi Maxamed Deeg oo ka mid ah golaha dhaqanka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa si kulul uga hadlay barakaca iyo tacadiga maamulka Hargeysa ka wada magaalada Laascaanood. Caaqilka oo ka hadlaya arrintan waxaa ka mid ah hadaladiisii sida tan. Arrinta Laascaanood ka dhacday ee dagaalka kicinta ah laga wado Laascaanood ee dagaalka kicinta ah lagu samaynayo ummadda Soomaaliyeed waxaan ayuu ku saabsan yahay warkaygu. Soomaaliyay waa arkaysaan sida wax u dhaceen. Waxa dhacayna waa wax laga ooyo, waa wax laga xumaado. Inkaar baa dhacday, dad baa galabsaday, ama maamul ha sheegtaan ama wax kale ha sheegtaan ama mas'uuliyiin ha sheegtaan. Waa inkaar saan is leeyahay dhacday oo iyaga ku ekaan doonta. Dadka la raafay marka u horeysa sida xun loo raafay waa aan hayn milgo islaamnimo iyo ummadnimo iyo Soomaalinimo ka baxsan. Waxaan aaminsanahay ay shaqo ku lahayn reer Laascaanood ama dhulbahante meel kasta ha kala joogo. Anigu gobolada Hawd baan joogaa, xagga Hawdkaan jiraa ka soo hadlaya hadda. Waxa weeyaan ma aha wax tala ah oo aan ku leenahay oo jira oo ku jira ma jiro. Waana taxigta waxa weeyaan dadkaas Ilaahay idin boogadayaan leeyahay. Ilaahay wax dhaama cadowga idin raafay iyo dhibta la idin geystay. Allah idin boogadayo ubadkiina kala maqan iyo dhibtaas hantidiina idinka maqan dhibaatooyinka idin gaaray. Allah idin boogadayo, Allahna idin soo urusho. wax reer Laascaanood shaqo ku leeyihiinna maaha, wax dhulbaanta shaqo ku leeyihiinna maaha. waa ogtihiin. Waxayna maraqsan doontaa ciddii talada gashay. waa maangu racanbu iyo garasho jaan. Surtii xodayga gashay xagarka laga raadsay bay arrintani ku timi. Ilaahayna waxaan ka baryayaa xaqa inuusan qarin baan alle ka baryayaa. 30 sannadood baanu Soomaaliya waxaa qabnay dilka madaxa laga tooganayo dadka wax badan oo ka daran raafkan iyo wax la wada mida. waa haddii maanta la isla arag ay noqotay waxa weeyaan maanta waa la isla arag bay la tahay. waxay la tahay oo kale haddii cid la raafayo oo sinjiyad la eegayo oo ficiis la eegayo Soomaali anigu ma ogin meel ay sinjiyad ku kala leedahay. Hargeysa iyo Burco iyo Berberaba waa joogaan dadka maxaan ku yiraahdaa haybtan sheeganaya ama Soomaali ma garanayo waxay kaga duwan yihiin. waxa lagu dabagalay waxa in la cadeeyo, in wax la sheego, in wax la yiraahdo, in wax horta miiska la soo saaro yaa ka horeeyay. cid walba ceebtaada waxay la tahay waxaan qarsoomayn lama qarin karayo. wax cadna cid qarin kari mayso. Ilaahay waxaan ka baryaa inuu u boqoleeyo Soomaali meel ay joogtaba. maantana taa dhacday ku ibra qaashadeeda leedahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.